Wakhtiga shaashada ee sariirta waxaa laga yaabaa inay kordhiso hurdo la'aanta. Daraasaddu waxay soo jeedinaysaa. Haddii aad tan ku akhrinayso sariirta taleefankaaga, keligaa ma tihid. Dad badan ayaa isticmaala taleefoonadooda ka hor iyo kadib wakhtiga jiifka, gaar ahaan dhalinyarada iyo dhalinyarada. Weli, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad wacdo habeen dhow kadib markaad dhammayso akhrinta kan dabcan. Wakhtiga shaashada ee la dheereeyey ka hor sariirta ayaa si weyn looga shakisan yahay inay carqaladayso hurdada, inkastoo faahfaahinta muhiimka ah ee ku saabsan firfircoonidu ay tahay mid aan caddayn. Daraasad cusub oo ay sameeyeen cilmi baarayaashu waxay isku dayeen inay arrintan wax badan ka iftiimiyaan, iyagoo isticmaalaya xog ururin ballaaran oo lagu sameeyey 4,2 arday oo wax ka barta jaamacadaha Norway. Wakhtiga shaashada ee sariirta ayaa lala xiriiriyaa 59% hurdo la'aanta sare ee hurdo la'aanta. Daraasadda ayaa lagu ogaaday, taasoo horseedaysa in 4 daqiiqado yar oo hurdo ah habeenkii. Laakiin dadku siyaabo badan ayay u isticmaalaan shaashadaha, kuwaas oo qaarkood laga yaabo inay hurdadu u saamayso in ka badan kuwa kale. Miyuu tagu hurdadaada wax u dhimi lahaa sida warbaahinta bulshada? Daraasadihii hore qaarkood waxay soo jeedinayaan in warbaahinta bulshada ay si gaar ah ugu xun tahay hurdada, xitaa in ka badan noocyada kale ee wakhtiga shaashada. Weli cilmi baaris yar ayaa si toos ah u barbardhigtay waxqabadyo kala duwan oo ku salaysan shaashada iyo saamaynta ay ku leeyihiin hurdada. Inta badan daraasadaha sidaas sameeyey ayaa diiradda saaraya dhalinyarada, cilmi baarayaashu waxay xuseen. Daraasadda cusub ayaa ka muuqata tiro dad ah oo ka yarada weyn, dadooduna u dhaxayso 1 ilaa 2, waxaana laga soo qaatay xog badan oo la ururiyey oo loogu talagalay daraasadda caafimaadka iyo fayo-qabka ardayda 2/2, daraasad heer qaran ah oo lagu sameeyey ardayda Norway. Sahanku waxa uu ka kooban yahay macluumaadka tirakoobka ee ardayda iyo sidoo kale dhowr arrimood oo caafimaad iyo qaab nololeed oo ay ku jiraan isticmaalka shaashada iyo hurdada. Dhibaatooyinka hurdada aad bay ugu badan yihiin ardayda waxayna saamayn weyn ku leeyihiin caafimaadka maskaxda, waxqabadka tacliinta, iyo guud ahaan fayoobida, laakiin daraasadihii hore waxay inta badan diiradda saareen dhalinyarada, ayuu yiri Gunhild Johnsen Hetland, cilmi nafsiga kiliinikada ee Maxadka Caafimaadka Dadweynaha Norway. Marka la eego isticmaalka baahsan ee shaashadaha sariirta, waxaan ujeednay inaan sahamno xiriirka ka dhexeeya dhaqdhaqaaqyada shaashadaha iyo qaababka hurdada, ayay tiri. Waxaan filnay in isticmaalka warbaahinta bulshada ay si xoogan ula xiriirto hurdo liidata, marka loo eego dabeecadeeda isdhexgalka iyo kartida kicinta shucuureed. Sida laga soo xigtay natiijooyinka, si kastaba ha ahaatee, isticmaalka warbaahinta bulshada ma ahayn wax caqabad ah oo hurdada ah marka loo eego waxqabadyada kale ee ku salaysan shaashada. Nooca waxqabadka shaashadu uma eka mid muhiim ah marka la eego wakhtiga guud ee lagu isticmaalo isticmaalka shaashadaha sariirta, Hetland ayaa yidhi. Ma helin farqi weyn oo u dhexeeya warbaahinta bulshada iyo howlaha kale ee shaashada, taas oo soo jeedinaysa in isticmaalka muraayadda lafteedu ay tahay qodobka ugu muhiimsan ee hurdo la'aanta. Waxay u badan tahay inay sabab u tahay wakhtiga barakaca, halkaas oo isticmaalka shaashadu uu dib u dhigo hurdada iyada oo la qaadanayo wakhti haddii kale lagu qaadan lahaa nasasho. Ka qaybgalayaashu waxay soo sheegeen inay sariirta ku isticmaaleen wax warbaahin elektaroonig ah, iyo intee in leeg waxay caddeeyeen haddii ay daawanayeen filimada ama tiga, hubinayeen warbaahinta bulshada, baadhayeen internetka, dhegaysanayeen maqalka, ciyaaraha, ama akhrinta waxyaabaha la xidhiidha daraasadda. Cilmi baadhayaashu waxay kuwan u kala qaybiyeen 3 qaybood oo ballaadhan, kaliya warbaahinta bulshada, ama warbaahinta bulshada iyo howlaha kale ee ku salaysan shaashada. Intaa waxaa dheer, ka qaybgalayaashu waxay ka warbixiyeen wakhtiga jiifka iyo wakhtiyada kor u kaca, inta ay ku qaadatay inay hurdaan, inta jeer ee ay ku dhibtoonayeen inay hurdaan, inta jeer ee ay dareemaan hurdo maalintii, iyo muddada hurdo la'aanta. Kuwa soo tebiyey wakhti badan oo shaashada wakhtiga sariirta kadib waxay aad ugu dhowdahay inay soo sheegaan calaamadaha hurdo la'aanta. Daraasaddu waxay ogaatay. Hawsha gaarka ah waxay u muuqatay inay ka yarayn wakhtiga guud ee shaashada. Soo jeedinta isticmaalka shaashadu waxay dhimi kartaa hurdada iyadoo la saarayo nasasho halkii ay kor u qaadi lahayd soo jeedka. Waxaa jira digniino xusid mudan. Cabirka muunadku wuu weyn yahay, tusaale ahaan, haddana waxaa ka maqan kala duwanaanshiyaha dhaqameed si ay natiijada u noqoto mid guud. Daraasadu waxay sidoo kale ururisay hawlo badan oo ku salaysan shaashada, iyada oo mugdi gelinaysa noocyada suurtagalka ah ee qaybaha cidhiidhiga ah. Iyadoo ay daraasaddu muujinayso isku xidhnaanta, haddana ma muujin karto sababta. Dadka hubinaya warbaahinta bulshada ayaa runtii sheegay hurdo wanaagsan guud ahaan, laakiin saamayntu waxay u socon kartaa dhinac kasta. Tafsiir kale ayaa ah in isticmaalka baraha bulshadu aanu ahayn howlaha ay door bidayaan ardayda sida aadka ah ugu halgamaya hurdadooda, ayay cilmi baarayaashu qoreen. Ardayda qaar waxay u isticmaalaan tiknoolajiyada hurdo ahaan, waxayna dooran karaan waxqabadyada loo arko inay ka xasilin badan yihiin, sida daawashada filimada ama dhegaysiga muusiga halkii ay ka ahaan lahaayeen garaafyo.
Haddii aad ku dhibtoonayso hurdada oo aad ka shakisan tahay in wakhtiga shaashadu uu noqon karo arrin, isku day inaad yarayso isticmaalka shaashadda sariirta. Sida ugu habboon u jooji ugu yaraan 30 ilaa 60 daqiiqo hurdada ka hor, Kitland ayaa yidhi. Haddii aad isticmaasho shaashadaha, tixgeli inaad joojiso ogeysiisyada si aad u yarayso carqaladaynta inta lagu jiro habeenkii.